ولي الله هذا واقفوا بالباب ماذا. sheekh cabdiraxmaan ibnu cabdilaahi wuxuu ahaa sheekh caalim ah oo qarnigii 19aad wuxuuna bartay dad badan nasiib baray diinta gabayada nabi ammaanka ah iyo faafinta diinteena suuban. sheekh suufi wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho 1245 hijriya halkaasi oo uu ka aasaasay dugsi islaamiya oo dhigaal xusuuseedka taariikhdiisu ka mid yihiin Uways al-Barawi. wuxuu qoraalo badan ka sameeyay mustaqbalka muqdisho iyo cilmiga diinta wuxuuna qoray buugaag caan ah sida sajjalad al-yaqiin. kasakow xirfadiisa aqooneed sheekh suufi waxaa loo yaqaanaa laguna xasuustaa dhexdhexaadiye weyn iyo dib u habeeye dhaqan. da'da 78 sano ayuu ku dhintay sanadka hijriyadu markay ahayd 1323 wuxuuna dhalay caruur 8 ah oo 4 gabdho yihiin 4na wiilal yihiin. hadda waxaan u soconaa inaan booqano oo aan aragno gurigii uu ku noolaa sheekhii weynaa ee caalamka Soomaaliyeed ahaa sheekh suufi oo halkan ku noolaa. gurigan hadda aan galayna waxaa la sheegay inuu dhisan yahay dhowr boqol oo sano oo aan inta lagu soo koobi karin oo sheekha ka hor bixi kara guriga uu dhisnaa. aan aragno. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد إيه؟ عندها؟ إيه عاوزك. باب سرير كرسي باب شوف سرير كيف واتنا. صح. سريرتان. وكسي حجري. سريرتان كسي حجري. هي. قول كيسنا أنت واي أدلنا. كتابكان uu sheekhu qoray runtii waqti fog ka hor jalbigiisa waxaad ka ogaan kartaa sida uu u cimriyay kitaabkan. waxaana intan uu ku soo gaaray maxfadkan oo gurigiisa ilaa hadda ku dhex yaala. runtii qadan aad arki karto hadda waqadii uu qoray sheekh cali suufi oo sidan ayuu dadka uga soo qayb qaatay inuu ku baro quraan kariimka iyo diinta inteeda kale taba. wuxuu kaalin wanaagsan ka soo qaatay oo budhig uu ahaa faafinta diinta. wuxuu ahaa hogaamiye diineed. sheekh suufi wuxuu wax baray kana faracmay culimo badan oo laga xusi karo sheekh muxudiin macalin mukarram, sheekh cabdullaahi qudub, sheekh cali yuusuf iyo rag badan oo taariikhda faafinta diinta marka laga hadlayo aad loo weyneeyo. haddaba waa kan jaylaani nuur iikar oo ka waramaya taariikhda sheekha. jaamacadiisa ama kolleejkiisa sidii ay culimada noo sheegeen ilaa 300 qof ka soo qalin jibis. dadka mashhuuriinta ugu weynaa waxaa ka mid ah sheekh qaasim al-Baraawi, sheekh aadan maxamuud oo loo yaqaan sheekh aadan oolihan, sheekh maxamed faqi yuusuf iyo sheekh cabdullaahi qudbi. inta mashhuuriinta la yaqaan. markii saan oo kale ay dhacdo sheekh maxamed faqi yuusuf wuxuu dhihi jiray laa taqasbi sheekh suufi lagama sheekay karo waayo waxa mataqaana oo la koobi kara ma mataqaana siiradiisa cilmigiisa wuxuu gaaray. xirta kala duwan ee culimadii uu wax baray sheekh suufi kuwii ay wax sii bareen dhashooda ah ayaa sanad kasta yimaada halkan iyagoo ka qayb galaya xuska loo sameeyo sheekha. waxayna ku soo bandhigaan dikriyo dadku ay la jalboodaan. sheekh cabduqaadir macalin nuur oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya oo aan kula kulannay qabuuraha sheekh suufi ayaa ka hadlaya sida sheekhu uu budhig ugu ahaa faafinta diinta islaamka. عروضك عربية لو قبيو wuxuu leeyahay buxuur 17 baxar oo baxaryaasha qasiidooyinka lagu alif luqadda carabiga marka la shacrayo. marka shicirka carabta 17 koodaba nabigu ku amaanay sallallahu alayhi wasallam. mid kasto baxar kastaba nabigu ku amaanay sallallahu alayhi wasallam. carabiya oo fusxa ah kutubkaas waa la daabacay oo qasiidooyinkaas wada dhigay waxa la dilil cibaad ila sabiil rashad. marka alxamdulillah rabbil alamin. sanad kasta taariikh 27 sano ayaa loo xusaa oo loo karaameeya. waxaana dadkan ay isaga kala yimaadaan gobolada dalka kaliya ma ahan dadka imaanaya magaalada muqdisho maadaama sheekhu uu ahaa hogaamiye diineed. dadka intaan la eg hadda aad arki karto waxay halkan u joogaan inay weyneeyaan sheekha. wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Iimaan Cabdullaahi Cali ayaa sheegay in markasta tahay in la xusuusto culimada Soomaaliyeed. inaan maanta xusno xuskaasi wuxuu la mid yahay inagoo xusayna inta waalid ina dhalay inta culimadeennii waaweyneed ina bartay diinta islaamka annaga oo xusaynay la mid tahay. sidaas daraaddeed horta niyadda aan ku qabanno maanta waxa aan u oomanahay oo dhibaato weyn aan u qabno waa nabad. innagoo intaas isugu imaan karna maanta hal meel
oo isu sheegi karna kulley wixii wanaaga isna fari karna wanaag iskana reebi karna xumaan dhibaatooyinka maanta ina haysta nin walbana uu dareemi karo inuu ilaahay inaga saaro inaan niyadda ku wada qabanno. منصر محمد عبدي، يونيفرسال TV، مقدشو.